haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo wana lama huraane hagarlihii wax ugu qabo شرعي ما هستعرى واقعتي ومساكين بلادنا وصومالي هالشيء سكنك إلى وصومالي إسرائيل إلى وقبيسي أنا قد أحبين إلى يا وضدك قبلها نون قاتلنا قد أحسار دول قوى إنك ورياضة يا دول قوى إنك دولة يرد ضعيفة شرع وحسينين شرع دولة يرد وحسينين سوى أفريقيا وحسينين ما تتكلم جيجي يا تتكلم جيجي ليس مانتا والله 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 دول قوى إنك والله دول قوى إنك dhaca boobka loo geysanayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka South Africa marnamo uma dulqaadan doono sida ayaa waxa yiri dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota oo maanta ku banaan baxay xarunta weyn ee looga taliyo magaalada Minneapolis ee qalqacad ee loo yaqaan capitalka ujeedada banaan baxa ayaa ahaa in dawladda South Africa la gaarsiiyo fariin toos oo loo diray taasoo ahayd in ay joojiso dilka dhaca iyo boobka lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka South Africa dadka banaan baxay ayaa erayadooda waxa kamid ah jooji dilka aad ku hayso dadka Soomaaliyeed sidoo kale halkaasi ayaa waxa ka hadlay dadweynaha aad u fara badan qaarkood ayaa wajigooda waxay ka muuqatay cara aad u weyn dadkaas ayaa si toos ah fariina waxay u direen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo sheegay in ay doonayaan in ay dhagahooda ku maqlaan dawladda Soomaaliya tilaabadii ay ka qaadi lahayd dawladda South Africa marnaba u dul qaadan mayno in dad Soomaaliyeed dhagax lagu dilo ujeedada waxay tahay inaan garab taaganahay walaalaheena Soomaaliyeed ee ku nool South Africa aan ka xunnahay wixii ku dhacay wiilkeena walaalka lagu dilo dhagaxa Soomaaliyeed ee ka qiirootay arinta wiilka Soomaaliyeed ee South Africa looga sameeyay waanu ka xunnahay taana waxa keentay tafuraaruqa ay Soomaalidu ay ku jirto waxa wiilka ay dhagaxa ku dileen dharka ka fiiqeen ay banaanka ku qaawiyeen waxa ka dambeeyay maxaa la dhihi jiray wiilal buris lagu dilay waxa ka dambeeyay laba maanta la soo sheegay waxa ka dambeeyay kuwa misaare lagu dilay marka waxaan idin leeyahay Soomaali haddaan nahay waan dulmanahay tiiraanyaysan dadka walaalahooda ee lagu leynayo maalin walba South Africa aad iyo aad baanu uga xun sax waay waxaan dareemaynaa dadka yaga lagu leynayo habeen iyo maalin South Africa dawladda federaalka waa inay indha dheer u yeelataa waa inay la hadashaa waa inay u gurmataa dhibaatada waa inay dareemaan waxaan leenahay ka kaca meesha waxaan u sheegayaa dawladdeena Soomaaliya anaga dawladdeena federaal bay hadda noqotay dawlad ku meel gaar ah dambe kuma jirno dad kasto qof kasto naga dhintay inaan mataqaanaa aan u doodno u istaagno oo aan ka doodno mataqaanaa sidii mataqaanaa dadkaas xaqooda ugu soo dhicin lahayn ayaan dawladda message-kaas ugu dirayaa dawladdeena Soomaaliya ku meel gaar waa dhaaftay federaal bay maraysaa waxaan leenahay South Africa inaan la xisaabtantid baan u baahannahay madaxweyne xasan waxaan farayaa Soomaalida inay isu timaado oo ay maanta u noqoto maalinkii ay bilaabi lahaayeen midnimadooda nahay aad iyo aad barorduuq u diraynaa dhibaatada ka dhacda South Africa iyo dhibaatada loo geystay walaalahan Soomaalida maanta waxa sugan maana loo leynayo waa ka xunnahay adduunka ayaan u soo bandhigaynaa dadka yaga la leynayo maxkamadda adduunku waa inay indho dheer u yeelto caalimku waa inuu indho dheer u yeelto Cabdi Axmed Good sidii loo dilay ee faash xumada wuxuushnimada ahayd ee Soomaali oo dhan isaga kaliya ma gabdhii uurka lahaa iyo kuwa haweenaya iyo kuwa guryaha lagu gubay wiilashii la gubay oo walaalaha ahaa iyo kuwa hadda xalay la sheegay la gubay waa arin aad iyo aad u foolxun in South Africa lagu ceebeeyo adduun weyn Soomaaliyeed taas ku tiirsanee warkiina taageera waligiina waxa uu yahay mid looga soo jeedo wadanka South Africa Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa maanta waxay isugu soo baxeen capitalka iyagoo muujinaya dhibaatada lagu hayo dalka Soomaaliyeed ku nool dalka South Africa haddaba Soomaalida ayaa maanta waxay sameeyeen iyagoo erayadooda ay kamid ahayd ha dhacdo South Africa qaarkood wajigooda waxa ka muuqatay inay aad iyo aad ugu xun yihiin Soomaalida ku dhaqan gobolka South Africa iyagoo qaylinaya Zakariya Aadan Universal TV North America